geesta kale wasiir waxaa jira shirkii diinta iyo dhaqanka ee Djibouti inta dadku lama kala dhacdo diinta iyo dhaqanka isniinta ma isqabanayaan dad badan intii aad hawshaasi ku jirtay oo ka waran intii xilka wasaaradda ay sida aad iskugu wado labada hawlood iyo sida isku fahmeen shaqaalihii arrinkaasi dhowr goor baa laga weydiiyey dhowr goorna waa ka jawaabay oo anigu waxaan qabaa fikir ahaan diinta iyo dhaqanku inaanay col ahayn inaan iskala soo horjeedin dadka muslimiinta ah dhaqankoodu waxaa ku salaysan yahay waa diintooduna waa qayb dhaqankooda ka mid ah waxaana ku habboon ummadda muslimka ah dhaqankayga inay qiimayso haddii uu dhaqankayga ku jiro wax diinteeda ka hor imanayo inaanay dhaqanba ka dhiganin marka hore ay ka guurto oo ay iswaafajiso waayo dhaqanku dadku siday aaminsan yihiin ma aha danska ma aha qoobka ciyaarka mana aha ciyaar faneedka aan naqaano dhaqanku waa habka ummadi ay u nooshahay wey xilliga ay nabadda tahay xilliga ay colaad ku jirto xilliga ay faraxsan tahay xilliga ay murugaysan tahay saacadda maalinka bisha sanadka nolosha oo dhan waxa ay rumaysan tahay ay ku nooshahay waxaa weeyaan dhaqan qaybihiisa faraha badan nolosha ah oo dhan oon dhaqan odhan karno wixii diinta khilaafsan in laga reebo unbaa wanaagsan laakiin dhaqanka yaana loo qaadan oo kala hati inuu yahay maaragtaan hees inaan loo qaadana maaha qobka ciyaar keliya waxaa kuwaasi waa kuwa lagu cabiro dhaqanka waa aaladaha lagu cabiro dhaqanka ummaddu leedahay xilliga farxadda iyo xilliga murugta laakiin nolosha oo dhan weeyaan dhaqan that's why aan mar walba u idhaahdo isma diidaan dhaqanka iyo diinta isma diidaan laakiin haddii aniga experience-kayga la i weydiiyo waan ku dadaalnay inaan labada shaqo isku wadno oo awal la kala saari jiray wayna isla socon karaan wayna ku qanceen dadka intoodii badnaa marka hore kasoo horjeeda arrinkaas inaanay wada socon karin waxay ku qanceen inaanay wax col ahoo ka dhexeeya jirin ilaa intaan heshiisiinayno fanaankeena iyo sheekheennana dee meel ma tegi doono waxaan noqonaynaa ummad kala go-an yani nafsiyadeedii kolna dambaa kolna cibaadaysanaysa oo dhuumanaysa labada goorba oo colis la ah ayaan ahaanayna qofku gudihiisiiba colis kuleeyahay wuxuu leeyahy maarata ana waa la maxaynaya heesta baktiya heestana wakti uu dhegeysanaya uu dambaabaya isagoo siduu rumaysan yahay iyaduna dembi ba ahayn halkana wuxuu leeyahy waan cibaadaysanaya markana markaa waa bulsho ku salaysan haddaan sidaa aan nahay ahaano inay been isku sheegto iyo munaafaqad oo marna ilaahay ka jirta marna ilaahay ka jirta ayaan noqonayna laakiin waxaan rumaysan ah ummadda Soomaaliyeed ma badbaadayso mana bogsanayso mana horumari doonto ilaa ay fankeyga iyo diinteeda heshiinayaan ilaa iyo dhaqankeyga iyo diinteeda heshiinayaan ilaa culumadeeda iyo fanaaniinteedu ay dhinac kasoo heshiisanayaan oy fanaaniinteeduna noqonayaan dad maaragtaan diineed wadaadadeeduna ay noqonayaan dad dhaqamada dhaqanka col ahayn waxaad arkaysaa wadaadkii diinta noo hayay oo af Soomaaliga colla ah oo le maaragtaan af carabi haddaan lagu hadalin dad ilaahay lama noqonayo oo dhaqanka carabeed haddaan la yeelin dad ilaahay lama noqonayo haddaan khamiis la xidhin dad ilaahay lama noqonayo oo rumaysan si ilaahay loogu dhawaado waa inaad carabowdo waa inaad dhaqan carabeed qaadato saas wadaadka aaminsan yahay fanaankii wuxuu rumaysan yahay oo xaggan kale jooga ama aqoon-yahankii ilaa wadaadada xunxun laga takhalusayo ee maaragtaan ummadda la hadhay inaanan maarata la socon karaynin waxa halkaa ummadda gaadhsiiyey in la isdilo oo la isgaaleeyo oo la istakfiiriyo waa markii lagu guuleysan waayey in la heshiisiyo fanka iyo diinta dhaqanka iyo diinta in la heshiisiyo taasi waa mashkilad taagan oo ummadda Soomaalida taala dhinaca kale anigu kolkaan shaqadayda ka dhaqaaqo waxaan arkay wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta way dhamaystiran tahay dhisma ahaan oo waa wax muddo soo jira laakiin dhaqankeennii oo nolosheennii ah ilaa hadda ma saldhigin fikradahaas aan qabo waxa weeyaan in wasaaradda dhaqanka kol kasta oo la dhisayo ama ha noqoto Djibouti ama ha noqoto meelo kale oo ummadda Soomaaliyeed joogto isku dee dhaqan baynu nahay
waxaan rumaysnahay in wasaaradda dhaqanka laga reebo wasaaradaha kale la raacinayo ee isgaarsiinta ama dhalinyarta ama maxay ah oo waxaa jira qaybo shaqooyin israaci karaya waxaa kamid ah qaybahaas israaci karaya waan kala sheekaystay xataa madaxweynaha jamhuuriyadda wasaaradda dhaqanka dalxiiska iyo farshaxanka ayaa israacaya oo waxyaalaha kasoo baxaya dhaqaale ahaan haday noqoto farshaxanka waxa weeyaan farshaxanka markaan leenahay waa agab dhaqameedka inagu aan samaysano ee guriga lagu isticmaalo hadday tahay dheriga hadday tahay dagaalka haddii ay tahay maarata carooska alaab aan samaysano ayaa jirta oo dadkeenu ay yaqaaniin ay tolaan ama ay qoraan fankaasi ama farshaxankaasi waa qayb dhaqankeeni kasoo jeeda laakiin inta badan waxaa la raacshaa wasaaradda ganacsiga ayaa la raaciyaa tourismka waxaa la raashaa wasaaradda ganacsiga la raaciyaa laakiin waxay ahayd inahaasi inay isbuuxiyaan oo wasaaraddii dhaqanka oo lagu soo koobay inay noqoto maaragtaan waax dhaqanka ka shaqeysa library museumka ama maaragtaan iyo archive-ka xarumihii wax la dhigaya oo lacagi gasho inta badan xooguni uu galo in dhinacani kale tourismka ilan touristiga maxaa kuu keenaya waxaa kuu keenaya soo damcayaa soo jiidanaya waxaad leedahay dhaqanka aad leedahay baa keenaya tourism haddaad ciyaar leedahay ciyaaraha soo arkaya haddaad leedahay monument iyo dhul maaragtaan taalooyin la dhisay oo qurux badan oo taariikhda kasoo jeeda way tegayaan farshaxankaagay soo daawanayaan waxay tourism waxay u imanayaan tourist waxay u imanayaan waa dhaqankaaga marka inahaas isbuuxinaya in dadka maaragtaan af Soomaaliya ku hadla meel kasoo joogaan iyo dalalka jaarkaba waxaan oran lahaa hala israaciyo wasaaradda dhaqanka tourismka iyo farshaxanka oo wasaarad tayaal oo xoog leh ayay maaragtaan ayay noqonaysaa wasaaradda arrimaha diinta iyada oo ay arrimaha diintu wada galayaan dhammaan nolosha qaybaheedii kale ee dhanna ay saameynayaan in iskeeda maaragtaan loo daayo